halkan inaan idinku dhaafo oo ku saabsan kayska Ismaaciil Dana. dad aad u tiro badan baa maanta i soo wacay oo yani weydiinayay kayskiisa. sidaad ogtihiinba Ismaaciil wuu xidhan yahay. xadhigu waa wada xadhig, haddana waa kala xadhig. Ismaaciil criminal case uma xidhnee wuxuu xidhan yahay immigration. waddanka markuu soo galay horta Ismaaciil dad badan baa waxay leeyihiin Mexico ku xidhan yahay, maxay buu ku xidhan yahay? Ismaaciil wuxuu ku xidhan yahay Mareykan. gaar ahaan wuxuu ku xidhan yahay gobolka Seattle Washington. Seattle Washington anu gobolkan deganahay waa Ohio Columbus Ohio deganahay. isaguna Seattle Washington buu ku xidhan yahay. Mareykan oo dhan baa basically noo dhaxeeya koonaha iyo koonahan kalena. haddana saasay tahay de waa la wada joogaa, waa idinkan arkaya adduunkii qol baa lagu wada jiraa. dadka ka warhaya baan anigu la hadlaa. weli anuu Ismaaciil personally ahaan jeelkiisa ma booqan, waayo de meeshuu ku xidhan yahay baaba masaafad foga, state-kaana intuu ku xidhan yahay ma tegin. laakiin waxaan la hadlaa dadka booqda ee Ismaaciil jeelka ugu taga, ee soo arka, ee looyarkiisa gacanta ku haya, ee xog ogaalka u ah baan la hadlaa. maantadana aan la hadlayo hadda telefoonka ka dhigay. waxaan arkayay social media wax badan oo la isla weydaarinayo oo dadku qof walba marka case yar la arko qof walba wixii maskaxdiisa ku soo dhaco iska yiraahdaa isagoo waxba hubsanin. Soomaalida waxa la yiraahdaa hubsiimo hal baa la siistaa. Ismaaciil dadku waxay isweydiinayaan sababta uu ugu raagay jeelka. dadkii soo galay Yurub ka yimid isaga la midka ahana ay u soo bixin. qofka waa la kala weydiiyaa markuu soo galo. dadkii soo galay oo dhan bade way nala joogaan Mareykan. Ismaaciil he choose to stay jeelka. isaga yiri waxaan doonayaa inaan halkan ku dhamaysto ku qaato sharcigayga. waanu ka jaanis fiican yahay dad badan oo maanta iyagu banaanka jooga. isaga ka jaanis fiican. lawyer buu leeyahay. reer Seattle gaar ahaan waanu mahad celinayaa lawyerka iyaga u qabteen say sheegeen. iyaga lawyerkiisa gacanta ku haya, way booqdaan, way soo arkaan. waa nin la og yahay sababtuu u xidhan yahay iyo meeshuu ku xidhan yahay. nin la iska ilaaway maaha. lama yaabayo walaalihiisa iyo waalidiintiisa iyo dadka waddanka ka maqan. waxay dareemayaan hebel wuu xidhan yahay, Ismaaciil wuu xidhan yahay, halkuuna ku xidhan yahay xabsi Mareykan ku yaala. yacni waad iska dareemi kartaa situationka uu ku jiro iyo marxaladdu siday tahay iyo siiba waalid iyo walaal markaa tahay waad dareemi kartaa. aniga waxaan xasuustaa ninkayga bari wuxuu ku xidhnaan jiray, ciyaalkayga aabahood halkan buu ku xidhnaan jiray Mareykan. aniguna Afrikaan joogay. waa la xidhay Mareykan baa lagu xidhay, New York baa lagu qabtay, waa la xidhay bla bla. yacni ma dareemi kartid qofkaasi marxaladdu ku sugan yahay. waa la xidhay baa kugu dambeynaysa. weliba waagaa hadda way kasii adkayd. arrimo barani hooyadii inaan isku baroordasan jirno, always la cali jirno, maalin walba ani hooyadiis la yuusi jirno aan dee raadin jirnay. inkastuuna kuba raagin buu 6 months at the time ku jiray. haddana markaad halkan timaadid baad ogaanaysaa differentka jeelasha halkan. migration markaad ku xidhan tahay waxaad la xidhan tahay dad kula case ah, dad kula mid ah, dad iyaguba doonaya sharci in la siiyo oo dalka ay ka baxaan. dadka criminalka u xidhan ee dambiyada galay iyo dadka migrationka u xidhan isku meel kuma xirna. marka horta marka koobaad meeshuu ku xidhan yahay waa meel nabad ah oo safe ah. taasi horta waa taas. tan la leeyahay reehebel baa lawyerkii bixin waayey, reehebel baa maxay sameyn waayey. waxaan u arkaa uun dad iska afkay bannaan iskaga hadlaya. Ismaaciil ma aha nin lawyer la'aan u xidhan, nin lacag la'aan u xidhan ma aha, nin tol la'aan u xidhan ma aha. annagoo dhan baa joognaa maanta dhan. waxaa la isla wareegayaa kulba kilib la soo diray 10 kun buu xidhan. 10 kun anaa bixin kara, anaa bixinaya. haddii 10 kun lagu soo deynayo oo 10 kun jeel ka soo saarayso, wallahi tonight anaa 10 kun dhigaya. laakiin kaysku sidaa ma aha. migration markaad u xidhan tahay milyuumaad haddaad bixiso, meesha Soomaaliya ma aha hebelow damaana iyo hebelow siida iyo hebelow ma aha. migration kaas baa laga warsugayaa. xilligay soo daayaan diyaar baan u nahay. annagoo dhan baa dibadda u joogna, anaga sugayna. state kasta uu yimaado, hadduu halkaa state-ka juus gareeyo iyo hadduu goboladan kale noo yimaado iyo guud ahaanba Soomaalida North America waa niman sugayno. oo fankiisa jecelnahay, oo family ahaanta ka hor fans u wadanahay, oo diyaar u nahay. marka dadka ka walwalsiinina waalidiintiisa iyo walaalihiisa iyo eheladiisa maaragtay Afrika iyo meel fog jooga dhigta waxuna ugu ridina. Ismaaciil waan ognahay, waanu ka warhaynaa. waa nin maaragtay maxkamad sugaya, soo baxaya biidmillah isagoo ay 94kiisa gacanta ku watana uu soo bixi doona insha Allah biidmillah kariim.
hadday maad aragtay sidaan dee lawyerku u sheegay dadkii ka mas-uulka ah ay wax u dhacaan marka Soomaali Maxamed intaasaan idinku darsanayaa koolka tirada badan waayo maadaama aan idin wada jawaabi karin oo de markaad wadankii joogto ilaa Yurub ilaa Afrika ilaa meel kasta dad baa ku canaananayo markay ku soo wacan ku oranaya maxay idinka qaldaan maxaa meesha ka qabanaysaan ma inta yar bad filin weydeen ma inanka meesha ku ilowdeen maxaa yaani sheekadu saas ma ah migration Soomaalida Nabi Maxamed ee Mareykan joogto dhan ayaa migration intooda badan soo martay waana la garanaya gacan migration wixii ku jirana ilaa uu ka soo baxo meel gacanta la gelin karo laga soo saari karo ma mid kale waxaad ogaataan karoonuhu sidoo u dhacay wax walba way isbedeleen ballamii 2 bilood iyo 3 bilood lagu heliyay sanad bayba noqdeen dhaqaatiirtii baa xataa aan sugaynaa 5 bilood oo arkaysaan waxyaalo badan baa hadda isbedelay oo process kooda waqtigii awal sidoo u dhawaan jiray waqti ka dheer u qaata marka taana talada ku darsada Soomaali Maxamed waan salaamay